بسم الله الرحمن الرحيم. sidii aan ku ballansanayn waa 7 fiidnimo 3 daqiiqo ayaa dhiman waana soo galay insha Allah ta'ala arrimaha Nairobi waxa ka socda ayaynu falanqeyn doonaa wixii ugu dambeeyay laakiin wax yar sidii caadada ahayd بسم الله الرحمن الرحيم waxaan gelaynaa barnaamijkii aan ku falanqeynaynay waxa Nairobi ka socda wada hadallada Nairobi ka socda wixii run ah wixii been ah iyo falanqeyntii marka ugu horeysa waxaan jecelahay inaan idin sheego sababta dad badan baa igu yiraahaa oo nalaf kamid ma tihid deedeesayna ma tihid maxaad uga hadlaysaa wada hadallada ama aad ugu mashquulaysaa waxaan jeclaan lahaa inaan idiin sheego dadka dhulka ka soo jeeda ma ay laha saxaafad xor ah oo si xor ah wararkooda u soo tabiso laba saxaafad bay leeyihiin midda Cabdiilay oo biyo durduraya iyo barwaaqo laga sheegay 24 saac iyo dad lacag iyo raashimo la siinayo laakiin macluul jirkooda aad ka dheehanaysid iyo warbaahin kale oo jabhadu ay leedahay oo guule istaba jooga iyo kumanaan kun oo askar oo Tigray oo la dilay iyo maartii Ethiopia oo kala tagaysa laga sheego marka ma ay jirto media mana lihiin dhaxdhaxaada oo waxa jira ayadoona extreme left or right midna aan ahayn oo u dhaxaysa dadka oo ka hadasha marka wada hadallada hadda socda iyo wax kasto deegaanka ka dhaca dantu waxay qasbaysaa dad aan oo kale isu xilqaamay oo maartay deegaankii iyo dadkiiba la jecel ka hayso iyo dibkoodii aan urur ama kooxna ka tirsanayn inay si dhexaad u soo gudbiyaan intii tabartay ah waan isku dayaa inaan xaqiiqada ama waxa dhabta aan marwalba soo gudbiyo laakiin bini aadan baan ahay waan khaldami karaa waan khaldamay kulli ibn aadan khataa'ood markii khaladkii la ii sheegan inaan qaataan jecelahay taas waa intaa midda kale ah maxaa ka galay deegaanka iyo dhulka ama jabhada oo nalaf waxaan qabaa dhibka ama dagaalka meesha ka socday saameyn bi igu yeeshay aniga iyo ehelkayga tusaale ahaan waxa ku dhintay 1997 kii Allah u naxariisto asagoo jabhadaha meesha ka dagaalamaya mid kamid ah walaalkay oo iga weynaa daad iga weyneed ah oo Umar Ali Shaal la yiraaho waliba dhaawac intii lagu qabtay la dhaawac tiray sanadkii hadda tagay December bilowgeedii ayeedii baa loo dilay freedom of speech keygii gurigeygii ayaa ilaa hadda la haystaa oo la wareegay oo dhistay marka saameyn ayaa aniga igu leedahay dhibka meesha ka taagan ka shakhsi ahaan ka Cabdirashiid ahaan ka dadkaygii iyo ehelkaygii kan la tiro malaha waxa kale oo ku dhintay asoo jabhada oo naftu dagaalamaya wiilan adeer u ahay marka waa wax aniga i taabtay waxa laga yaabaa ragga waftiga oo nafada hogaaminaya sida maade oo kale walaalkii iyo wiilu dhalitoon inuu ku dhimanin
ama dhib aysan ka soo gaarin laakiin taas muhiimaddu ma aha anigu igama xigo maaday ka hadalka qadiyadda intaa waxaan jeclahay inaan u sheego kuwa yiraaha maxaad uga hadlaysaa ama maxaad mataqaanaa usoo hadal qaadaysaa waa araar midda kalena waa yaro kaftano ninkii cabdi ahaa oon caydhsanayay ayaa iga soo galay Nairobi iyo Onelaf sidaa darteed waa inaan Nairobi ka daba tagaa intaa waa kula kaftamaya oo meeshu ninka marba aado waa inaan ka daba tagaa oon ka daba oon aadaa intaas waa kaftankay intaa markii laga gudbo waxa xaqiiqada ay jira waxaa jira qoraal aan soo qoray 26 November waxaan u maleynayaa waa 2 bilood iyo waxoogo 2 bilood iyo bad exactly qoraalka waxaan ku sheegay in is arag u dibay ka dhacay ay isku arkeen Cabdi Maxamuud Cumar General Gabre iyo Gabradille iyo dhinaca Onelaf oo ka socdeen diirane Cabdi Yaasiin iyo Xasan Macallin iyo Cabdiraxmaan Maadey dad badan ayaa jira oo beeniyay maalinka ayada ku dhaartay aflagaada ii geystay 26 November baad aflagaada ii geystay waxaas ma jiraan waa been waxba kama jiraan yiri muddo kadib way ogaadeen inay run tahay waqtigii loogu talagalay in la ogeysiiyo waa la ogeysiiyay wax raali gelmaysa ka bixinin waxa kale oo soo ogaaday qodobada lagu heshiinayo oo u dhignaa in maartay awood qaybsi lala galo Cabdi labada sano soo socoto oo maartay kursiga sii hayo arrimo noocaasa taas laftigeeda dad baa igu beeniyay balse xaqiiqadii u dhowdahay waxaan jecelahay marka ugu horreysay inaan idinka faalloodo wada hadalka say ku bilowdeen oo hore idinku sheegin iyo goorta ay bilowdeen waxaa jirtay 2 sano ka hor ayaa Sheekh Ibrahim uu isxilqaamay Sheekh Ibrahim ka al-Ittixaadka madaxda jabhadda ayuu la xiriiray marka ayada soo qadar jooga khaas ahaan wuxuu la xiriiray afayeenka jabhadda Maxamuud Nuur la yiraahdo wuxuu ku yiri Tigreegi Ethiopia la heshiisaan baan rabaa oo wada hadal gashaan anaan idin dhadhaxaadiyo waqtiga ayada jabhaddu way ka diiday ma aysan u arkayn maslaxiyo xal inuu yahay wayna ka diiday waxaa laakiin jiray wada hadal hoose oo ninba maanta igu qabsay hoos inaan niri 2 jeer ayaa lagu kala kacay Nairobi oo wada hadal oo Onelaf Ethiopia ay soo yimaadeen wada hadalkii 2012 maqaamkiisa aad buu u sareeyay wasiirre u soo direen kii dambe hal general oo ninkii herar xukumayay ah iyo hal nin oo Soomaaliya oo Mawlid Haayir la yiraaho markaana kililka ka socda ayaa soo dhax fareystay Onelaf way ka xanaaday wada hadalkiina way burburisay laakiin waxaa jiray dabqaad ama wada hadal hoose sidoo maanta ba soo qoray Bunow Qorane uu yir 6 soo dhaafay baan dhadhaxaadin wadnay 6 sano ee la soo dhaafay ee dhadhaxaadinta uu waday dadku badankii meesan ogeyn Yusuf Xaaji waa kamid ahaa Yusuf Xasan oo ku soo biiray Maxamed Cabdi Afey ayuu maanta wada hadalkaas gooni buu u socday kan hadda bilowdayna waa mid kale oo initiative-kiisa Sheekh Ibrahim iyo Cabdiile ay leeyihiin labadii baa la iswaafajiyay is aragii Dubai kadib saado weedeen Cabdiraxmaan Maadi ayaa Nairobi tagay qoladii reer Kenya ku wargeliyay hadda inay diyaar u yihiin Cabdina ay sarkeen marka wada hadalkii process-kii socday ee Bunow Qorane iyo kan hadda Sheekh Ibrahim ee Dubai waa laba kala duwan saa in loo fahmo waan jecelahay ujeedada aan ka leeyahay ma aha inaan ka soo horjeedo waxaan jecelahay inaan idinku celiyo ma aha inaan wada hadal ka soo horjeedo ama nabadda in la qaato laakiin waxaan jecelahay shacabka inaan gaas dhawoolo laga soo qaadin waxa jira ee dhabta ah lala socodsiiyo si uu wacyigooda kor u noqdo haddii dadkii la caburiyo oo Cabdiileena uu yiraaho ma hadli kartaan oo hadda hadashaan ama ehelkiinaan xiri ama waan idin caayi dibadii ama qoliyii kale dagaalamayna ay yiraahaan haddaad hadashaan kaadir carbisan baan kugu soo diraynaa oo caraatan iyo cay kala daalaya waa musiibo intaada laag marka dadku waa inay ka hadlaan waxa jira oo wacyigooda aan hoos loo dhigin aan gaas dhogoro laga soo qaadin waxba aan fahmi karin of course waan taageersanahay waana taageersanaa nabad in la qaato qorigii inuu saxal ahayn weligii baan u arkay marka aan falanqeynayo ama aan ka hadlayo
ha u qaadanina inaan dagaal rabo ama aan diidanahay jabhaddu inay nabad qaadato keliya jabhaddu runta ha sheegtaan leeyahay qolada kalena runta ha u sheegaan shacabka waxa jira mar walba shacabka ha loo soo bandhigo ha lala socodsiiyo aan daha gadaashiisa waxba lagu maamulanin hadhow toolana sidii la rabaan laga yeelin waxa aan isku hayna aniga iyo dad badan waxay tahay war dadkan meel bay noogu xirxiran yihiin saan rabnaa wax ugu sheegnaa ee ha barin ama ha u sheegin waxa aanu hoos u leenahay anna waxaan leeyahay waxa aad hoos u leedihiin iyo waxa aad kor u leedihiin iyo wixii aad shalay lahaydeen iyo waxa aad maanta leedihiin consistent waa inuu noqdaa waa inuu isyeeshaa uu isleeyahay oo mar walba si laydinkula xisaabtamo su-aalo adagna laydinka weydiiyo mar haddii aynaan heerkaa gaadhin waa dhibaato inteeda la eg maalinba dagaal iyo meel aynaan u soconin baa laynagu jahay cabdi shalay wuxuuna lahaa oromaa cadow inagu ah oo ina soo weeraraysa soomaaliya dagaal aan qaadno maanta wuxuu leeyahay oromo waa walaaladeen waan heshiinay maanta wuxuu inaga dhaadhicinayaa qabiil soomaaliyeed oo absamo aba cadow inagu ah jidwa ee ogaadeen oo meesha ka kaxa beritoole hoos buu uga daadegi doonaa marka dadka in saa loo jaha wareeriyo waa anigu waan kasoo horjeedaa inay dad sidii ari meel ku xariisan ay ugu xariisnaadaanna waan kasoo horjeedaa waa in warbixinta la siiyo iyo waxa jira loona ogolaado inay fikiraan iyagu inay fikiraan oo fikirkooda markaa meesha ay rabaan iyo waxa ay dan u arkaan in maaragtay ay ku raacaan doorasho ma jirto waan ogahay dhulkeenna oo madaxda jabhadda hadda joogta ciidamo soo dooranin cabdiile ciidamo dooranin kuwa kale ciidamo dooranin oo dadka intii choice la weydiiyey hebel baa la dooranaya lama dhihin aniguna political competitive ama qof tartan kula jira jabhadda iyo cabdiile midna ma yihi waxay isku dayayaan personal attack iyo fikir khalada dadka inay ka dhaadhiciyaan oo aniga ii sawiraan qof tartan kula jira jabhadda ama cabdiile midna tartan kula ma jiro labada qolo midna tartan kula ma jiro laakiin waxa dhacay waxa jira halka dhibaatada ay taala iyo waxa ay leeyihiin baan accountability in la xisaabtamo la weydiiyo in la saameyn bay nagu wada leedahay wuxuuna shirkado ama ururo shaqaale oo gooni loo leeyahay ma aha waa wax dadweyne ama dalweyne ka dhaxeeya ilaahow meel laba qof taageersanaato hadduu urur istaago uu yiraahdo dalkaasaan wax ka qabanaya ama dhisaya dadka shacabka ah ama ha taageersanaadaan ama aysan taageersanaanin waxay xaq ugu leeyihiin inay su-aalo adag weydiiyaan inay falanqeeyaan inay dhaleexeeyaan haddii laakiin urur danwadaag uu yahay sida ururada shaqaalaha kuwa xuquuqda minority-ga u dooda kuwa human rights-ka arrimahooda ayaga u madax bannaan inkasta oo haddii khalad ay bulshada ka galaan la sheegayo laakiin sideedaba ururka siyaasadda inta taageersan iyo intaan taageersaneenba way u bannaan tahay inay falanqeeyaan oo ay ka hadlaan intaa yar waxaan ugu dheeraaday raallina ka ahaada inaan dad badan aan hal mar isku dayo inaan maaragtay aan u jawaabo arrinta cabdirashiidow taana waan jeclay inaan ka hadlo cabdirashiidow shalay baad cabdiile taageersanayd ama aad u tagtay maxaad u diidan tahay cabdiile hadda ama aad uga soo horjeedaa waa su-aal in badan la i weydiiyo anuu shalay toole cabdiile markuu meesha imaanayay nabad baan taageersanaa iyo qorigii inuusan xal ahayn cabdiile dhexdu ka soo galay nidaamkii aan taageersanaa weliba wuxuu muujiyey maalmihii hore inuu nin nabadeed yahay al-itixaadkii uu nabad la qaatay kooxdii oo nalafa salaaxudiin macow war hadda si aad leedihiin jaanis ha la siiyo ayaan lahaa cabdi lama shaqaynin wakiil uma noqonin guddoomiye jaalad uma noqonin laakiin waxaan lahaa war nabadan uu ninkan wada jaanis ha la siiyo waan bartay cabdi shakhsiyadiisa wuxuu yahay iyo meesha uu dadka ku wado markaad qofka baratidna waxaa fiican inaad go-aan ka qaadatid ma aana aqoonin wadanka laftigiisa aad maana u aqoonin wixii markaa ka horreeyay ma aana tegin tegitaanka laftigiisa wax badan buu igu soo kordhiyey iyo isbeddel badan marka shalay waa taageersanayd maanta maxaad uga soo horjeedsatay waxay tahay siyaasiyiinta caalamka iyo dadka kaleba waa la taageersanaa mabda aygii kama noqonin inuusan qori xal ahayn marnaba kama noqonin laakiin shakhsiyadda cabdi inuu qof dilaa uu yahay qof aan wax maamuli karin oo kheyr mas-uula inuu yahay waan arkay waana ku soo qancay kamana noqonayo laakiin mabda'ii ahaa inaan nabad oon qori waxba uusan taraynin mabda'a kama noqonin marka ninka ku soo biira mabda'a oo hadda yaqiinsada qorigu inuusan xal ahayn actually asagaa mabdigiisii iyo fikirkiisii bedelay ee anu marna maana bedelin ee shakhsi meesha yimid oo dadkii silciyey ayaan kasoo horjeedsaday midda maxaad calanka Ethiopia isugu sawirtay
weligii ma dhihin la iskuma sawiri karo waa xumaan ma dhihin dembina kama dhigin laakiin sawir calan la isku sawiro oo mara ah waxaa aniga igala sharaf dhac badan ama igala xag jir badan ninka dilaaga ah ee cabdiilay inaad isku garab sawirtid taana waa fikirkayga cabdiilay waa shakhsi dembi galay oo dilaa ah ninka marka isku garab sawiray ayaa aniga igala sharaf xun ninka calan ama maro uu asagu toshay isku garab sawiray waxay dooniba ha ahaato taasuna waa fikir kale laakiin waxaana oranin haddaan dhihi lahaa war calanka Ethiopia la isku sawiro waa dembi ama waa khalad maanta waad igu qabsan lahayd waad isku sawirtay laakiin waxaana weligeyba oranin haddaad igu qabsatay waa nasiib darro laakiin cabdiilay ninkii yiri waa dadka aanu xoreynayno ayuu ka mid yahay oo qayb ka yahay ayaa maanta isku sawiray ninkii lahaa lama kulmayno cid ma matalo kaas ayaa u baahan in lagu ceebeeyo oo treasonous weliba ah asagoo weliba mas-uuliyad u haya anu weligey mas-uul uma noqon dadka dagaal ma gelinin ma abaabulin wakiil kama noqonin laakiin ninka gacantiisa ama sababtiisa 30,000 oo wiil ay u dhinteen waxa ninkaasa u baahan in lala xisaabtamo ee qof shacaba oo weligii xil qabanin la xisaabtankiisa waa un iska personal attack iyo kaadirka carbisan ee loogu talagalay dadka inay aamusiyaan taana saana kuma aamusayo anigu iyo inta ila fikirka ah inaad ku aamustaan ama aad ka cabsataan khalad baan u arkaa marka la idin dhaleeceeyo ama la idin caayo dadka inta wax garanaysa waa inay wacyi geliso ayna xaqiiqadan u sheegto aan ka gudbo waan idinku dheereeyay araartii waa wada hadalka Sheekh Ibrahim qadar ayuu la xiriiray maxamed nin wakiilka oo nafto qadar jooga wada hadalka 2 sano ka hor ayuu Sheekh Ibrahim dhadhaxaynta keenay jabhadu way ka diiday markay ka diiday Sheekh Ibrahim uu iska gaabsaday hawlihiisu iska watay hadda dagaaladii Oromada iyo qallaasaha markuu Ethiopia ka dhacayay ayay jabhadu la xiriiday Sheekh Ibrahim jabhada ayaa la xiriiday Sheekh Ibrahim iyo Cabdiilay lama soo xiriirin waxa fiican in dadka runta loo sheego iyo shacabka of course waxay oo la xiriireen Ethiopia kala tagaysa ee ninkan aynu gooni u aragno aynu dhahno Ethiopia way kala tagaysaa aan midowno sidaas ayay hadalka iigu dhigeen marka ay ii sheegeen ay ku dalbadeen la kulanka Cabdiilay iyo wada hadalka markay dalbadeen ayay Sheekh Ibrahim sii maraya balse waxaan ogahay taageerayaashooda iyo shacabka inaysan saa public ugu sheegin that's why aan maanta u idhi wixii aan ogaayo dhan baan sheegaya kulankaas Cabdiilay oo culays badan uu haystay wuu aqbalay la kulanka wuu aqbalay wuxuu tagay Dubai Sheekh Ibrahim ayaana ka dhaadhiciyay oo u dhaxeeyay wuxuu sii ka haystay 2 generaal oo kamida kuwii asaga uu lacagta siinay ee taageersanaa waa generaal Gabrihi Soomaaliya iyo Gabradille oo Ethiopian Military Intelligence ama sirdoonka ciidamada haysta ayuu sii ka haystay hotel Dubai aa lagu kulmay wax badan ayaa la isla meel dhigay eraya kulkulu waa la isdhaafsaday laakiin wax badan ayaa la isla fahmay oo la isla meel dhigay kadib waxaa lagu heshiiyey qoladii Kenya ee dabqaadka waday muddada dheer ee siyaasiyiinta beesha ogaadeen Yusuf Haji iyo Buno Korane iyo Maxamed Cabdi Afey in lagu la noqdo oo wada hadalkii Kenya laga furo saraakiisha Tigreega iyo Cabdi waxay rabeen Djibouti in lagu qabtay rabeen laakiin jabhada dadkii ka socday waxay dalbadeen in lagu qabto Kenya oo halkii wada hadaladii hore ay ka socdeen halka qolada la isula tago Kenya waxa tagay Cabdiraxmaan Maadey wuxuu dawladda Kenya ayuu tagay ama raggii dhadhaxaadinayay ogaadeenka ahaa ee dawladda Kenya ka tirsanaa waxay ku yiraahdeen dawladda Kenya la isula tagay dawladda Kenya waxay ku tiri warqad official ah oo in wada hadalkii aanu dib u bilowna ah wasaaradda arrimaha dibadda ama dawladda federaalka Ethiopia noo soo dirto warqadii ayada ahayd waqti bay qaadatay in la helo Yusuf Haji baa sabab tagay Yusuf Xasan baa tagay waxoogow maadaama dawladda Ethiopia uu qallaasa dhaxdeeda uu ka taagnaa way ku adkaatay in laga helo wasaaradda arrimaha dibadda ama xafiiska ra'iisul wasaaraha warqadii waxa fiican wax walba sidoo yahay in laga sheego على اتحال دور ويك يمدة أي قاعدتي ولا جسوا قاعدي ورقدي
waxaa dhacay shirkii guddiga fulinta ee Sweden jabhadda ONLF ay ku yeelatay waxaa iyaduna xusid mudan waqtiga shirkaas uu socday inuu yimid magaalada Stockholm cidda uu la kulmay ma cadeyn karo ama qofka uu la hadlay laakiin Bashiir Waal oo Bashiir Cawarna loo yaqaano cabdi ay qaraabo yihiin ama ilmaadeer wasiir ku-xigeenka qurba joogtana ahaan jiray magaalada Stockholm ayuu joogay markuu shirkii guddiga fulinta ee jabhadda ONLF uu ka dhacay magaalada Stockholm ee waddanka Sweden miyuu la kulmay ama yuu la kulmay cadeyntii ma hayo inuu la kulmay iyo dadka mid inuu la kulmay laakiin asagoo wakiilka Cabdiilay waa asaguna Stockholm joogay cadeynteedina waan hayaa oo dadkii uu ku degtay ama uu la joogo dhan baa soo sheegay hadda warqadii markii la soo qaaday waxaa lagu ballamay Kenya 10ka bishan Kenya waa la wada yimid cabdi waa nin shaki badan Sheekh Ibrahim iyo dad kale oo dhexaadinaya waxay ku qasbeen inuu shirka tagin asagu rag kale uu dirsado oo wakiiladiisa ah laakiin cabdi wuxuu ka baqay in asaga meesha loogu shiro oo laga wada hadlo wuxuuna generaaladii Tigreega ahaa iyo asagu waxay go'aamiyeen in uu meesha ka qayb galo bal uu shir guddoon noqdo oo guddiga Ethiopia uu asagu go'aamiyo sida aad sawirada ka arkayseen kursiga oo u dhaxeeya ayuu fadhiyay labada dhinac asaga dhaxbartamaha ku jiray warqadahan asaga hay macnaha asaga ayaa shir guddoonka oo daadihinaya wada hadalka arinta ayada pressure badan baa lagu saaray waa soo qoray dhowr maalmood ka hor cabdi in la baryayo oo leeyahay tagi shirka asaga uu diidan yahay cabdi kaliya muuse tagin inta badan wasiiradiisii iyo maamulkiisii hore u sii ka haystay oo uu kamid yahay Khadar Dheere Suldaan Khayre rag badan kuusow Bashir Abdullahi Idris oo dhinaca kaga jira rag inta badan wasiiradiisii iyo maamulkiisii ayuu sii ka haystay asagoo shaki kala ka qaba in la daba mariyeeyo markuu jigjiga ka tago dad badan baa waxay isweydiiyaan muxuu u wada guuraa markuu meel aadayo cabdi meel markuu aadayo muxuu wasiirada iyo maamulka dhan u sii ka haystaa wuxuu ka baqayaa cabdi inta uu maqan yahay in afgambi lagu sameeyo oo qolyaha kale intii dhabarka laga taabto uu maaragtay intii dhabarka laga taabto ay bedelaan that's why uu Nairobi iyo meeshu tagay uu la tago waa nin baanarooye qaba uu saas baahaya okay wada hadalkii saas ku furmay maxaa lagu heshiiyay shirkii Dubai oo qoran waxaa lagu heshiiyay in maamulka qayb laga siiyo jabhadda ONLF inay urur siyaasi noqdaan oo doorashada 2020 ay ka qayb galayaan in ciidanka federaalka ciidan loogu daro in wasiirada federaalka laba loogu daro waa inta heshiisku haddana is aragana waa intii un baa miiska saaran laakiin maanta jabhaddu waxay codsatay in loo kaadiyo oo waqti la siiyo ay shirweyne ku qabsato shacabkeedana ay kaga dhaadhiciso iyo codsatay heshiisku uu qoran yahay waana la gaaray laakiin jabhaddu waxay codsatay waqti in la siiyo Tigreega generaaladii Tigreega cabdi la socday iyo cabdi waxay yiraahdeen 3 bilood ku soo gabagabeeyay 3 months laakiin jabhaddu way ka cudur daaratay waxay yiraahdeen waqti anaga aan loo xadidi waqtiga aan hawshanadu ku soo dhameysano ayaanu imaanaynaa ama shirweynaha anaga aan qabsano oo nu dadkana ka soo dhaadhicino shirweynaha lagu ansixiyo wuu idin soo gaari doonaa haddaba intaas waa warbixinta iyo sida ay wax u dhaceen waxaana fiican sida ay wax u dhaceen mar walba in la isu sheego kama soo horjeedo laakiin inta markaynu isla garanay waxaan jecelahay su'aalo in maaragtay la isweydiiyo 2005 ayada oosan waxaan wadada aysan dhiman ma aha inaan ka soo horjeedo laakiin jabhadda madaxdeeda critical oo madax aan isbedelin madaxdii hore una maadaama ay khaladaad hore oo political ay sameeyeen waxaan qabaa shacabkii dhaawaca iyo dhibaatada iyo qaxo uu ka soo gaaray dagaalkii wadeen inay xaq u leeyihiin su'aalo inay weydiiyaan especially madaxda hadda hogaamisa maxaa yeelay qofka siyaasiga ama wax hogaaminaya marka uu mistake ama political mistake uu sameeyo waa inuu qirtaa normally una iscasilaa taan iscasilaad ma jirto laakiin si loogu waana qaato khaladaadkii dhacay in la isxasuusiyo ayaan qabaa oo la isweydiiyo kama filayo Ilays TV iyo Afmeer TV inay weydiiyaan media kale oo weydiinaysa ama xogaal aan ma qabo sidaa darteed
waxaan jecelahay inaan weydiiyo anoo halkan u marinahaya madaxda hadda oo Cabdiraxmaan Maadey iyo generaalka iyo inta hadda joogto oo markaa joogtay 2005 Mille Zanaawi oo joogay waqti uu ugu xoog badnaa culays siyaasadeedna uu haystay oo doorashadii Itoobiya ahayd ayaa wuxuu soo diray wafdi odayaal beesha ah odayaasha waxaa hogaaminayay ugaas Cabdi Axmed Xaashi oo Cabdi Dacay loo yaqaan Allah yarxamu Allah u naxariisto garaad Xasan garaad Axmed garaad Maqtal Allah u naxariisto oo Cabdiile uu gacantiisa ku dilay jaloogaadeen Suldaan Cabdiraxmaan Duulane iyo rag kale oo badan Suldaan Maxamuud Duulane iyo rag kale oo badan beriga ayada Mille Zanaawi wuxuu diyaar u ahaa inuu jabhadda hor fareysto uu la hadlo odayaashan uu soo diray odayaal madax dhaqameed oo deegaankii u dhalatay xogtiisana haysa ay ahaayeen jabhaddu waxay diiday inay la kulanto inay wada hadal la sameeyso ay la furto marka haddii aan weydiiyo waqtiga ayada inta maanta ina gaadhay inama gaarin kumanaanka dhintay ma aysan dhimanin boqolaalka kun Cabdiile uu soo qixiyay lama soo qixinin dhaqanka iyo diintii iyo akhlaaqdii lagu ciyaaray ee Cabdi uu ku ciyaaray laguma ciyaarin maalinka hadday diideen inay odayaasha ergada Mille Zanaawi ay ka aqbalaan maanta ergada Cabdi Ilayse ee Sheekh Ibraahim uu ka ergeynayo say ku aqbaleen ama wada hadal inay la galaan oo hor fariistaan waan dareemi karaa oo tabartii hore ma jirto sax waqtigii ma waa sax laakiin marka ayada maadaama aad garan weyday inaysan tabartaadu sii soconayn iyo xoogga marka aad leedahay miyaysan ahayn calaamadaha ama waxa la idinku doortay leadership inaad noqotaan inaad waxa soo socda aad saadaalin kartaan leaderku ma aha ninka dadka daba orda ee ka sacabtuma ee daba sacabka tuma dadku meesha ay u socdaan waa ninka go'aamo adag oo kharaar qaata waqtiga loogu xoog badan yahay ka fikira dhibka iyo dhibaatada imaan doonta taa waxaan jeclaan lahaa in lagu la xisaabtamo oo la weydiiyo madaxda jabhadda waxa kale oo jeclaan lahaa oo in badan ku soo celceliyeen in badan ay ku soo celceliyeen Cabdi Ilay maxaa loogu mashquulayaa waxba nagalama maqno waxba Cabdi Ilay nagalama maqno Cabdi Ilay inama haysto inama gumaysto in badan ayay ku soo celceliyeen media iyo madaxda jabhaddu haddii ay runtahay saad sheegayseen maxaad u hor fareysateen oo la hadasheen ilaa shalay waxaadna lahaydeen Cabdi Ilay waxba nagama haysto inama gumaysto waxba inama yeelin ragga qaarkood waxba inama yeelin Cabdi Ilay maadaama uusan waxba ina yeelin uusan asagu ina gumaysanin maxaad u hor fareysateen oo exactly aad miiska iskaga soo horjeedeen Cabdiraxmaan Maadey iyo Cabdi Ilay not Gabre iyo Cabdi Ilay iyo Cabdiraxmaan Maadey iskama soo horjeedin oo nimankeena lahayn waxba inaga haystaan laakiin Cabdiraxmaan Maadey iyo waxa is hor fadhiyay Cabdi Ilay oo iska soo horjeeday diirane iyo waxa u dhaxeeyay hal qubno qorane sawirka markii la galay iyo Cabdi Ilay hal qof ayaa u dhaxeeyay marka haddii sidii aadna lahaydeen Cabdi Ilay uusan waxba inaga haysanin uunana ma taqaanaaye uusan waxba ina yeelin maxaad u hor fareysateen haddiiba aad hor fareysateen ma qiranaysaan khalad inay ahayd hadalkii aad nagu lahaydeen iyo dacaayad ee markaanu Cabdi Ilay ka hadlayna aad ogeydeen miyaysan taasu marin habaabin cad ahayn oo dadka aad marin habaabinaysaan waxaa la run iyo ilkaba waa la cadeeyaa waan ogahay wax walba waan ogahay inay dadku tabar yar yihiin la daalay jabhadii ay daciiftay sidii hore aysan ahayn waxaas oo dhawaan ogahay laakiin waxaa fiican dadkaaga marka aad la hadlaysid inaad sidaa ugu sheegtid inaad ahay tabar ma hayno awood ma hayno nabad baynu iska qaadanaynaa gudahaynu galaynaa laakiin inaad been cad sheegtid ood miidiyahaaga ka sheegtid oo tiraahdo Cabdi Ilay ma imaanayo shirka mar aad dahdis arag Dubay ma jiro waa been marba wax aad akhriyeed waxaan u arkaa marin habaabin iyo aqliga iyo garaadka taageerayaashaada iyo shacabkaba in lagu ciyaarayo garaadka ama garashada shacabka iyo taageerayaashaba inaad ku ciyaaraysid wax walba haddii sidoo Ilaahay kugu ogyahay haddaad daacad ka tahay halganka iyo hawsha aad sheegaysid waxa ila qurux badan in
aad dadka runta mar walba u sheegtid ummad ma xoroobi karto ayadoo runta isu sheegin meesha ay joogto kama dhaqaaqi karto hadday quraafaad iyo been ay isku madadaaliso in badan baan isku madadaalinaynay nin kamida madaxda jabhadda ayaa 2007 khudbad ka jeediyay magaalada Oslo khudbadaas dad badan baa dhageystay waxa kamid ahaa wuxuu yiri haddaad $2,000 bixisaan 2 sano ayaynu ku xoroobeynaa markuu hadalkii dhameeyay soo baxay baan ku yiri warniyahow inaan 2 sano lagu xoroobeyn ama wadanka aydan xoog ku qabsanayn waad ogtahay dadka maxaad waqtiga ugu qabanaysaa soo hadhow been lagu qabanaya ma aha wuxuu yiri weyba iloobayaan dadka waa lagu kiciyaabi waa lagu abaabulaa 2 sano xusuusanba ma hayaan dadkoo dhan ma aha inta badan iloobaan baa laga yaabaa laakiin qaar badan ayaa xasuusan oo ogaanaya waxaa fiican dadkaaga marka aad wax u sheegaysid waxa realistiga ah iyo awoodaadu inta ay tahay iyo tabartaadu inaad mar walba u sheegtid ummadda wacyigeeda wuxuu kor noqonayaa ama ay ayagu guul ay gaari karaan oo xaqooda iyo xuquuqdooda ay heli karaan marka ay runta isu sheegaan marka ay isu sheegaan meesha ay taagan yihiin iyo awoodooda laakiin haddii aynu isku qufno aynu isku akhrino cirkiya dhulkaynu kala haynaa adduunyadii oo dhan inaga ugu sarreynaa tolla ayay yaa ree hebelahay tolla ayay maartaqanaa reerkayga awoodda ugu badan leh weligaa guul ma gaaraysid underdog baad ahaanaysaa waxaad ahaanaysaa dad rafaadsan oo beenquutayaal ah waxa aan rabo waxay tahay siyaasiyiinta beesha u dhashay beeshaydaan leeyahay weliba waa idinku celinayaa beeshayda u dhashay waxaan jecelahay inay runta isu sheegaan inay shacabkooda runta u sheegaan inaysan been ku madadaalin it doesn't matter meel walba uu joogo beentu siyaasigu wuu sheegaa sometimes laakiin waxa principalka ah ama muhiimadda ama danta guud been lagama sheego waxaasoo kale dadkaagii baad lu goynaysaa ummadaadii baad lu goynaysaa ma jihayn kartid waxaad ka soo qaadaysaa gaas dhagool waxaa sahlanaanaysa marka aad gaas dhagool ka dhigtid sidii la rabo in laga yeelo sida hadda dhacaysaba marka intaasan kusoo gabagabeynayaa oo jecelahay barnaamijkan aan kaga hadlay wixii Nairobi ka socday waxaan iloobay hal point oo ahaa Cabdi Ilay muxuu ka leeyahay wada hadallada iyo sawirradii maanta Cabdi Ilay sawirradii maanta uu jabhadda la soo galay iyo Nairobi dan yar buu ka leeyahay asagu soke wax fog ma sii fiiriyo kullay in badan oo idin kamida aqoon badan uma lihidin ameedaan u fiirsan ficilada Cabdi Ilay ma saadaalin kartaan danta uu ka leeyahay waxay tahay dadkii kacsanaa ama dulmidiid ama ashkhaastii kale aanu kamid ahaa inuu isku dayo inuu niyad jabiyo inuu u sawiro in jabhadiiba ay isla sawirayso oo rabto oo dhaxbartamaha u taagan yahay saa darteed anigu Cabdirashiid ahaan iyo inta ila midka aan waxba ka qaadi karin wuxuu u tusayaa in tulkii ay jecel yihiin ama Kenya ha joogaan ama Soomaaliya ha joogaan ama jabhada ahaadaan taas ayada ah wuxuu uga daleeyahay inuu beeshi baryahan uu beegsiga ku hayay jidwa inuu ku guulguulo oo u tuso ogaadeen baa midoobay waxba nagama qaadi kartaan annaga ogaadeena waa ujeedada uu ka leeyahay maanta oo ugu dambeysay dad jidwa ku xirxiray qaar buu qixiyay waa nasiib darro ayada oo uu dhinac kala qixitaan ka wada inuu qolo kale la yiraahdo wada hadal baan la galayaa taas waxay ku tusinaysaa inuusan daacad ka ahayn wada hadalka inuusan daacad ka ahayn dib u heshiisiin maalin boqolo ayuu rabaa inuu ma aragtay uu ku awrkacsado sidii haday aan idin sheegayba marra uu yiraahdo Soomaaliba cadow inagu ah marra jidwaaq ba cadow inagu ah marra uu yiraahdo mataqaanaa reesaaq ba cadow inagu ah hadan reebelna waa jariimooyinka ama taatikooyinka uu isticmaalo uu ku caanamaalay war ha ku kadsoomina ninkan aqoon badan baa idin ku laaban ogaadeen iyo wallahi buu jidwaaq kala jeclayn reerkiisa ama caruurtiisa dilaa keen hadda oo kursiga si joogaysa intuu geeyo miiska saaraya wara ku kadsoomina wardan ogaadeen ma wado dan Ree Cabdilla ma wado dan Ali Yusuf ma wado dan cidna ma wado dantiisa ayuu wataa dantiisa oo kaliya ayuu wataa wuxuu arkaa kursiga inuu ku fadhiyo waa muhiim in laga digtoonaado sawirradaasu sawir xun bay bixinayaan laakiin waxa muhiim ah dadka wax garadka inay ka hadlaan beeshaasu heshiis kuma taageero Cabdi Ilay